dharka kana cadayste jidka dhinac maraaye dhibka diidaya iyo kan dhammaade dhagaxaysa saare dhoobada qasa hadday wada dhasheen laalalala waxa uu dhaxeeya ninkii dhagalahow maqal ninkii dhaayaloo waraag waan dhowrayaa oo waan dhisayaa war waan dhowrayaa oo waan dhisayaa dhanka aan hayee soomaalidu dhammaan dadkii waxay rabtaa wou dhimanayaa soomaalidu dhammaan dadkii waxay rabtaa wou dhimanayaa war wou dhimanayaa nacabkay dhacaaye dhiigayga jaqahaye buuxa iga shukaa dhaldhalaalka beentiyo dhuuri uu isiiyey inaan dhadhasadaa warway dhaga xume nacabkay dhacaaye dhiigayga jaqaaye buuxa iga shubaa dhaldhalaalka beentiyo dhuuri uu isiiyey inaan dhadhasadaa الرحيم maantay oo ay taariikhdu tahay kowdii bishii sagaalaad waxaa halka ka bilaabatay shaqadii kowdii bishii koobaad 2022 halka laga dhagax dhigay ahayd in laga dhiso degmada Carmo bishiisa laga dhiso degmada Carmo ku dhawaad 6 kiiloomitir iyo 300 kiiloomitir oo laami ah oo isku tashi ah marka maanta waxaa halkan ka bilaabatay shaqadii 2 kiiloomitir ugu horeysay oo socon doonta ilaa 4-5 maalmood soo socota insha Allah sida injineeradu warbixinta ku bixiyeen shaqadani waa isku tashi bulsho weeye runtii waxaan aad ugu mahad celinayaa bulshada reer Carmo dal iyo dibadba oo shaqadan iyagu qaybta ugu muhiimsan ka ah isku tashi dadku haday dabcan inay wax qabsadaan waxay qabsan karaan waxay doonaan marka tani waxay tusaale u tahay maanta dalka Soomaaliya oo la ogyahay abaaraha iyo dhibaatooyinka ka jira haddana bulshada reer Carmo may ilaabin inay abaartana qayb ka noqdaan oo ka qayb qaataan gacanna ay abaarta iyo dadkooda dhibaataysan kaga qayb qaataan gacanna ay ku dhistaan dalkooda bulshada reer Carmo iyo guud ahaan bulshooyinka Soomaaliyeedba sidoo kale kama marna oo halkan dawladdu door muhiim bay ku leedahay intani waa bilow waxaan rajaynayaa insha Allah doorkii ugu muhiimsanaa inay dawladdu qaadanayso haddii alla idmo ballanqaadyada madaxweynaha mudane Said Abdullaahi Dani iyo sidoo kale wasaaradaha ay ugu horeyso wasaaradda arrimaha gudaha wasiir Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad aad baan ugu mahad celinayaa dhiirigelinta ay noo sameynayaan bulshada iyo maamulka degmada Carmo إن شاء الله تعالى لحدا كلنا وكحجيسا بإذن الله تعالى مركب ما أنتم حلنا هاي برشاد رهار عرمو دليل دبدبة شغلان ودبلحات كده إنك ويا وحال الربا أنت نوكليا معها وحان رمنا دقمة أودن إن كشقينه إن شاء الله تعالى اسكت الشجانينا وحو قيب كي رهار عرمو اسكت الشدي معناه هذا وحو رهار بنتلان واسكت الشدي هي السمالوين واسكت الشد رهار عرمو وحي عنوان ويهين isku tashiga maantay dalka ka jira bulsho markay tashato waxay doonaan bay qabsan karaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada saxaafadda siiba saxaafadda raadiyaha telefishinka Puntland oo maalintan mashruucan bilowna ilaa iyo maanta heegan u ah tabintiisa iyo la wadaagida bulshadiisa oo ugu horeeyo wariye dadaal aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa boqolkiiba boqol sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xaggan isoo istaag injineer Maalfo xaqiiqdii ma aha inaad codkayga ka jarin injineer Maalfo wuxuu ahaa aniga isagu waxaan ahayn mashruuci 2 kiiloomitir ee magaalada Boosaaso lagu dhisay dadkii iska wax u qabsada ugu shaqeynay isla mar ahaanta xataa maalmihii yaraa ee caqabadu timi dartii isu xiray oo xabsiga u galay maantana 2 sano 3 sano kadib wuxuu dhisayaa oo qayb ka yahay oo waliba uu dibdhaxaad u yahay wadooyinkan injineer Maalfo la'aantiis shaqadaani ma fusheen oo uu dibdhaxaadkii injineerka si gaar ah ugu mahad celinayaa boqolkiiba boqol waxaan leenahay dhammaan bulshadeena aan gacmaha is qabsano sidaas aynu wax ku qabsan karnaa
mashruucan wadooyinka markaan dhammayno ama idnaga ku dhex jirra waxaa noogu xiga mashruucii degmada Carmo inay yeelato jaamacaddii ay u baahnayd aniga muddadan degmada joogay labada su'aalood ugu badan igu soo noqnoqda waxa weeyaan Carmo waa inay wadooyin laami yeelataa Carmo waa inay jaamacad quality la yeelataa labadaas weeye marka labadaasna fariinteedu waxay tahay tii koobaad ee wadooyinka waa muujinay tan labaadna insha Allah ta'ala bisha tobnaad wixii loo gaaro baan ka hawlgalaynaa bulshada waxaan rabnaa inaan u diyaar garowno haddii aynu helno waxbarasho fiican macnaheedu waxay noqonaynaa bulsho quality insha Allah ta'ala aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada reer Carmo runtii door weyn bay ku leeyihiin maanta halkan waxa jooga gabdho iyo wiilal aan waxba meeshan lagu siinayn iyagu guryahoodii ka yimi uma soo daawasho tagin waxay u yimaadeen inay dowrkooda qaataan inay la shaqeeyaan injineerada inay dhiirigeliyaan inay dhalinyarada iyo ardayda ka celiyaan waxyaabo maartay maadaama meeshan shaqo ka socoto dhalinyarada waxaan leeyahay aad baa mahadsantiin si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa guddigii hawshan isu xilqaamay oo dhammaantood mudan kulligood bila sharaf in la siiyo oo agti igala joogo tabadhaa dhalinyarada hoggaanka dhalinyarada tabadhaa wuxuu ka mid yahay dhalinyaradii kicisay mashruucii daliftiinshe marka hal doorkii baa mashruucan wada aad iyo aad baa u mahadsantiin dhammaantiin assalaamu calaykum dharka kana cadayste jidka dhinac maraaye dhibka diidaya iyo kan dhammaade dhagaxaysa saare dhoobada qasa hadday wada dhashee laalalala waxa uu dhaxeeya ninkii dhagalahow maqal ninkii dhaayaloo waraag waan dhowrayaa oo waan dhisayaa war waan dhowrayaa oo waan dhisayaa dhanka aan hayee soomaalidu dhammaan dadkii waxay rabtaa wou dhimanayaa soomaalidu dhammaan dadkii waxay rabtaa wou dhimanayaa war wou dhimanayaa nacabkay dhacaaye dhiigayga jaqahaye ruuxa iga shukaa dhaldhalaalka beentiyo dhuuni uu isiiyey inaan dhadhasadaa warway dhaga xume nacabkay dhacaaye dhiigayga jaqahaye ruuxa iga shugaa dhaldhalaalka beentiyo dhuuni uu isiiyey inaan dhadhasadaa